amniga magaalada muqdisho wuu sii xumaanayaa. weli waxaa jira walaac weyn oo dhanka amniga ah xilli la sheegaya in qaraxyo kale ay soo galeen gudaha magaalada muqdisho oo lala beegsanayo mas-uuliyiin dowladeed. khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya wasaaradda amniga iyo gobolka banaadir ayaa la leeyahay waxa uu sababsan karaa amni darri weyn oo ka dhacda gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho. shacabkii cabsi ay wadnaha farta ku hayaan. qaraxyo ayaa isdaba joog ka ah magaalada muqdisho, xaalkuna wuu sii xumaanayaa. waa Milga TV iyo warbixin degdeg ah oo aan ku eegi doono xogo kale oo muujinaya qaraxyo waaweyn oo gudaha u soo galay gudaha magaalada muqdisho iyo cidda beegsiga gaarka ah lagu hayo. waan falanqayn doonaa, balse marka hore saaxiibayaal sii sheergareeya muuqaalkan oo like-na saara. nagu soo biira oo follow dhaha page-keena Facebook ee Milga TV si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay guud ahaan Soomaalida iyo caalamka. waa hagaag, aynu ku bilownee. qaraxyo ayaa la sheegay inay soo galeen gudaha magaalada muqdisho xilli uu taagan yahay khilaaf siyaasadeed u dhexeeya wasaaradda amniga iyo gobolka banaadir. muranka u dhexeeya wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir waxa uu dhaliyay in la wada sheegto cidda looga dambeynayo mas-uuliyadda ammaanka caasimadda muqdisho. wasiirka amniga gudaha Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa dhowr jeer awaamiir ku kooban gobolka banaadir soo saaray, balse waxaa dhaqangalka awaamiirtaasi ishor istaagay maamulka gobolka banaadir, gaar ahaan xafiiska gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare. marka laga soo tago muranka u dhexeeya gobolka iyo wasaaradda amniga xukuumadda federaalka, si gaar ah waxaa hadallada isku jawaabista ah isticmaala wasiirka amniga iyo gudoomiye Cali Yare. labadan mas-uul waxay isku mariyeen qoraallo lid isku ah ciwaanadooda gaarka ah ee Facebook, kuwaas oo ay ku daabaceen qoraallo u muuqda weerar toos ah. wasiirka amniga ayaa dhowaan fasaxay banaanbax la qorsheynaya in muqdisho laga dhigo isbuucii hore, balse sida la sheegay looga soo horjeeday madaxweyne Farmaajo. fasaxa wasiirka banaanbaxa oo lagu cadeeyay qoraal ayaa waxaa muddo kooban kadib ka soo hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee dhanka amniga Cali Yare, kaas oo isticmaalay ereyo adag. haddaba muranka maamulidda ammaanka caasimadda ee xamar dhinacyadan isku hayaan, waxaa jira walwal iyo cabsi dheeraad ah oo ay dhexlayaan shacabka caasimadan. ishaysiga u dhexeeya labadan daraf waa mid ku tacalluqa siyaasadaha isdiidan ee u dhexeeya xafiisyada ugu sarreeya ee dalka. waxaas dad badan ay aaminsan yihiin in dayac amni uu ka dhalan karo arrintaas oo ka dhacda muqdisho haddii xal degdeg ah laga gaari waayo. muqdisho ay ku nool yihiin malaayiin qofood oo ku badan 3 milyan, waxaa ka dhaca qaraxyo lagu waxyeeleeyo mas-uuliyiin iyo askar. hase ahaatee khasaaraha u badan waxa uu soo gaaraa shacabka caasimadda. maanta oo ugu dambeysay qaraxii lagu dhaawacay afhayeenka xukuumadda Macalimo ayaa waxaa soo baxay tuhunno dadka qaarkood ay farta ku fiiqeen in dowladda dhexdeeda laga soo agaasimay qaraxaasi, inkastoo al-shabaab ay sheegteen in weerarkaas iyagu ay ka dambeeyeen. haddana marka la fiiriyo muddooyinkii ugu dambeeyey, xaaladda ammaan ee muqdisho waxay ahayd mid faraha ka sii baxaysa. waxaa soo badanayay dilalka iyo dhaca loo geysanaya shacabka caasimadda. waxaa soo badanayay qaraxyada joogtada ah ee ka dhacaya magaaladan, kuwaas oo waxyeelada ugu badan ay ka soo gaarayeen shacabka caasimadan. dan uma aha reer muqdisho khilaafka wasiir Cabdulaahi Maxamed Nuur iyo gudoomiye Cali Yare. waa in xal degdeg ah loo helaa amniga gobolka banaadir, lagana hortagaa weerarada qorsheysan ee magaaladan ku soo wajahan, sida xogaha la helayo ay muujinayaan. walaac amni ayaa taagan, xaaladda magaaladana halis ayay galaysaa. haddaba daawade, adigu maxay kula tahay? sideese u aragtaa xaaladda ammaan ee muqdisho? fikirkaaga iyo waxa ay kula tahay daawade ku reeb qaybta commentiga. tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.